waxa uu safray ceelka Bahruud si uu ula kulmo boqorka shayaadiinta Namruud. Wuxuu yidhi waxaan arkay wax ku fadhiya kursi, waxaan ku sujuuday lugtiisa bidix, wuxuuna i saaray lugtiisa midig, taasoo daliil u tahay in lagu soo dhaweynayo caalamka sixirka. Wuxuu u soomay, u salaaday, una cibaadaystay cid aan Ilaahay ahayn. Waxaynu maanta ka sheekaynaynaa taariikhda nolosha ee saaxirkii toobad keenay Daa'uud Maxamed Farxaan. Daa'uud waxa uu yidhi markii aan dhashay waxaan la dhashay xanuun, aabahayna waxa uu ii baryay shayaadiinta si aan hadhow markaan weynaado iyaga ugu adeego ina caafiyaan. Wuxuu yidhi aabahay waxa uu ii kaxaysan jiray dhul uu kula kulmi jiray shayaadiinta. Markii aan 11 jirsaday waxaan ogaaday aabahay inuu saaxir yahay kana dhaxlay awoowahay. Wuxuu yidhi aabahay waxa uu ahaa oday weyn, carruurtiisana aniga ayaa ugu yaraa, wuxuuna iigu dardaarmay inaan isaga bedelo. Saaxir kastana waa sidaasoo mid ka mid ah carruurtiisa ama faamiligiisa ayaa bedela, waana sababta uu Daa'uud u galay dariiqa madow. Daa'uud wuxuu yidhi aabahay noloshiisa iyo noloshayduba isku mid bay ahaayeen. Noloshayaduna wuxuu yidhi waxay ahayd diiqad, murugo, madow iyo nacayb aan dadka u qaadnay. Sidaasi lamida dadkuna waxay ahaayeen kuwa aad noo neceb. Hooyaday wuxuu yidhi way iska aamusi jirtay, xitaa haddii ay naga soo horjeesatana waxay ka bedeli karto ma jirto. Aabahay waxa uu ii kaxaysan jiray sida qabriga Binu Calwaan ee ku yaala Ticis, halkaasay iskugu iman jireen shayaadiinta iyaga oo ku caabudaya uguna gowracaya cid aan Ilaahay ahayn. Waxa uu yidhi aabahay 15 iyo 14 Shabcaan waxa uu aadi jiray qabriga Binu Calwaan. Halkaana wuxuu kula kulmi jiray saaxiriin kale iyaga oo ku galaya dhaaro, wax weydiisanaya qabriga waciyaadu billaah. Waxa uu yidhi halkaasi waxay ahayd macbad ama meel wax lagu caabudo, laakiin waxa lagu caabudi jiray cid aan Ilaahay ahayn. Aabahay wuxuu yidhi wuxuu dhintay isaga oo jira 78. Dhimashadii aabihii kadib Daa'uud caalamkii sixirka wuxuu galay 3 sano kadib, laakiin 3daas sano wuxuu yidhi intii lagu guda jiray shayaadiintii aad bay gurigayga u goysay mana iman jirin. Wuxuu yidhi laakiin shayaadiintii waxay iskaga kay soo dhigi jireen gabdho, kabacdiina waan la sinaysan jiray, waxaana la aadi jiray magaalada dabadeeda, meel kayna ah, buuro iyo cidlooyin. Dhulka ayaan gabdhaha la aadi jiray shayaadiinta. Wuxuu yidhi habeen habeenada ka mid ah ayaan waxaan la kulmay dhacdo aad u la yaab badan. Wuxuu yidhi aniga oo ka imid dhinaca kaynta una soo socda tuuladaydii ayaan waxaan arkay bahal geed ku xidhan. Bahalkan wuxuu yidhi waxa weeye waxaan moodayay in saaxir kale meesha ku xidhay, maaha bahal adduunkan joogay. Waxa uu yidhi bahalkii baan fuulay, waxaanan isku dayay inuu ilaa guriga i geeyo. Cabbaar kadib markii uu socday bahalkii waa istaagay. Waxa uu yidhi ul ayaan ku dhuftay, waa dhaqaaqi waayey. Ul kale ayaan ku dhuftay, wuu dhaqaaqi waayey. Wuxuu yidhi ushii 3aad markii aan ku dhuftay dib ayuu ii soo eegay, waxaana iigu tidhi ma bahal baad ii malaysay. Codkeeduna wuxuu ahaa cod gabadh. Hal mar ayaa Daa'uud waxa uu galay koomo. Koomadaana kuma jirin maalin iyo 2 casho ee wuxuu ku jiray 3 sano. Wuxuu yidhi anigu markii uu dhacdadaasi igu dhacaysay waxaan ahaa 15 sano, waxaanan soo miirsaday anigoo 18 sano jira. Waan kici jiray, hareerahayga ayaan eegi jiray, sidii qof xidhxidhanna dib ayaan ugu noqon jiray. Shayaadiintii waxay bilaabeen in ay u keenaan cunno. Cunnadanna waxay ahayd hilib. Hilibkani wuxuu ahaa hilib kilaab iyo bisado. Wuxuu yidhi markii ay ii keenaan waan cuni jiray, waxaanan bilaabay inaan aad u jeclaado. Magaalada dabadeeda ayaan ku wareegi jiray si aan u helo bisado, kilaab iyo weliba carruur yaryar. Laakiin wuxuu yidhi anigu wax carruur yaryara ma cunin, aabahay waa cuni jiray. Wuxuu yidhi magaalada qubuuraheeda iyo dhulka cidlada ah ayaan ku wareegi jiray si aan u helo waxaan cuno, xitaa dad ha ahaatee. Reerkaygii waxay bilaabeen inay xidhxidhaan, waxayna ii geeyeen ninay dadka tuulada u yaqaaneen wadaad weyn, laakiin ahaa saaxir aad u weyn. Waxayna igu geeyeen bal hadda si uu ii daweeyo. Isla markiiba
markiiba wuxuu bilaabay inuu madaxay qabto. Waxa aanan ku dhuftay madaxayga madaxiisa, wuxuuna yidhi, karaamadii aabbihii iyo adeegayaashiisii ayaa la socda. Saaxirkani wuxuu haystay hal shaqaale oo shaydaan ah, halka aniga ay igu lamaanaayeen 7 shaqaale oo shayaadiin ah. Wuxuu yidhi, gurigii ayaa laygu soo ceshay, waxaana laygu xidhxidhay silsilado aad u waaweyn. Wax yar kadib waxa layga furfuray silsiladihii. Anigu xitaa ma garanayo cidda iga furfurtay silsiladaha, laakiin markii dambe waxaan ogaaday in ay shayaadiintu iga furfureen. Wuxuu yidhi, markii silsiladihii layga furay, waxa aan ka baxay meel aad u cidhiidh ah oo aan qof bini'aadani ka bixi karin. Wuxuu yidhi, waxa aan miyirsaday aniga oo jooga magaalo Sabiid la yidhaahdo. Magaaladani waxay door muhiima ka qaadatay barashadii sixirka. Wuxuu yidhi, waxaan soo baxay saacadihii dambe ee habeenkii, waxaanan gaadhay waagii markii uu saa u baryaamo subaxii hore. Magaaladan iyo tuuladiisa haddii gaadhi loo raaco, waxaa loo socdaa maalin dhan, halka isagu ku tegay 4 ilaa 5 saacadood. Miyuu ordayay, miyuu duulay, lama garanayo. Laakiin waxaa loo malaynayaa inuu jinkii qaaday, geeyeyna magaaladaas si uu la kulmo Binu Calwaan qabrigiisii. Binu Calwaan waxa uu ahaa mid ka mid ah saalixiintii hore, dadkii wanaagsanaa, cidna waxba uma geysan jirin. Laakiin dadkii ka dambeeyay ayaa bilaabay inay Ilaahay u shirki yeelaan oo qabrigiisa caabudaan. 3 casho ayuu Daawud fadhiyay masaajid ku yaala magaalada. Kabacdi wuxuu yidhi, ninkii masaajidka haystay waxa uu i siiyey lacag. Waxa uuna yidhi, waxaad tagtaa magaalo loo yaqaano Yafras si aan ula kulmo una booqdo qabriga Binu Calwaan. Wuxuu yidhi, markaad halkaa tagto, waxaad la wareegi doontaa karaamadii, sharaftii iyo shaqadii aabbaha oo ahayd sixirnimada. Maalinkii 4aad waxa uu gaadhay qabrigii Binu Calwaan, wuxuuna bilaabay inuu soomo oo salaado. Laakiin cidda uu soomayo oo u salaadaya Ilaahay ma ahayn, ee waa qabriga Binu Calwaan. Xitaa waxa uu yidhi, waxa dhacday in salaada loo jeesanayo dhinaca qabriga oo aan loo jeesanayn dhinaca qiblada. Waxa la akhriyayay quraan, waxaanan joogay muddo 15 casho ah. Waxa uu yidhi, waxa ii yimi nin, wuxuuna igu yidhi, waa kugu dhacday karaamadii aabbaha. Waxa uuna igu yidhi, waxa shardi kugu ah in aad soo booqato sanad kasta qabrigan, kuna gowracdo neef dushiisa. Waxaana jiray kutub, fargal iyo weliba cimaamad iyo sijaayad aabbahay dadka ku qaldi jiray, iskagana dhigi jiray awliyo. Markii uu aabbahay dhintayna, waxa aastay hooyadayoo qaaday. Waxaan imi gurigii, hooyadayna waxay weydiisay, waxaad ka timi qabrigii Binu Calwaan? Waxaanan ku idhi, haaye, waa inaan helo kutubkii, tusbixii iyo fargalkii aabbahay. Hooyaday waa ii diiday, laakiin waxay caawiyey shayaadiintii. Markii aan helayna, kutubka shardiga koowaad waxa weeye in aad ku kufridid Ilaahay, malaa'igtiisa iyo kutubtiisa. Shardiga labaad oo aan ka xumahay inaan idhaahdo waxa weeye inaad kutubka quraanka ka dhigatid kabo muddo 40 casho ah, weliba suuliga la gashid, ismana daahirinaysid, mana fadhiisanaysid meel Ilaahay lagu caabudayo. Gurigaaga waa inaan quraan laga shidin. Eedaanka waa in aanad maqlin. Haddii aad maqashidna waa inaad nacalad ku tuftid. Haddii ay maalinku ku khasab noqoto inaad dadka hortooda ku tukatid, waa aad iska dhigtid nin saalixa, waa inaad dadka iskaga dhigtaa sidii mid isi soo daahiriyey. Laakiin markii aad suuliga gashid, waa in aad ismarisaa najaasta teeda ugu xun. Waxa uu yidhi, sixirnimadaadu ay taam u noqoto ama u dhammaystiranto, waa inaad caaddaa ceelka Baharuud, ceelkan shayaadiinta jeelka u ah. Wuxuu yidhi, marka ugu horreysa waxa aad la kulmaysaa 3 calaamadood ceelka ka hor. Waxa uu yidhi, calaamada koowaad waxa weeye inay ku soo weerarayaan bahalo, laakiin ha ka biqin, bahalahaasi waa khiyaali. Calaamada labaad waa inay ku soo weerarayaan iyaguna dawacooyin iyo masas, iyagana ha ka biqin,
wuxuu yidhi wax calaamada saddexaad waxa weeye inay kugu qarxayso buur dab ah, laakiin ha ka baqin, iyaduna waa khiyaali. Daa'uud wuxuu yidhi waan sii arkay calaamadahaas oo dhan. Wuxuu yidhi waxaa ka baxaysa ceelka dheegagiisa ama gudihiisa qaylooyin aad u kala daran, waxaana ka mid ah qaylo dameer. Wuxuu yidhi waan istaagay, waxaanan idhi ma sii wadi karaayo. Waxaanan akhriyey aayatul kursi oo hooyaday mar walba akhrin jirtay. Wuxuu yidhi ma garanayo sidaan u akhriyay iyo siday afkayga uga soo baxday. Waxaan dareemay aniga oo ka soo baxay ceelkii Bahruud. Daa'uud calaamadahaas oo dhan markii uu arkay ma ahayn mid iska daaya sixirkii. Waxa uu ku soo noqday tuuladii, waxa uuna aaday ninkii masaajidkii ugu horreeyey ee maalintii ugu horreeyey uu aaday. Waxaana uu weydiiyey ninkii masaajidka, wuxuuna ku yidhi waxaan aaday ceelkii Bahruud sidii aad igula ballantay, laakiin lama soo kulmin Namruud. Daa'uud wuxuu yidhi haa, laakiin lama kulmin Namruud. Namruud waa ka ugu weyn shayaadiinta. Waxa uu yidhi ninkii wuxuu igu yidhi waxaad keentaa neef xooleed si aan halka ugu yeedho Namruud dhiigna ugu daadiyo. Wuxuu yidhi waxaan aaday tuuladii, waxaanan ka doonay neefkii, waanan soo helay, waxaana bilaabatay in aniga iyo Namruud aanu kulanno.